طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسر وادا وبرنامج كيني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. برنامج كان وصيدي هراء نصو شيقني أو تلقلني إن أن قرآن كسيكوبا أجزاد أما جزسك قرآن كوبين إن أن حلقة والباء هل جزك سوق قادنو أو سيكوبا أو وهذا جزكاسي وحيالها وكهد ليو. ما أنت حلقة إن شاء الله تعالى وحب صاحب سنان دون جزك سدحات قرآن كريم كاسان لصع إنه إلهي سبحانه وتعالى هل مرني محمد كمسود الجين بل وحسود لاتين سدح سنوسي جوج أو ما ركتي مراحل كلا قد سنة قرآن وحلاقة بيا مكي يا مدني مكي وقرآن كهجرة كور سود جي وإلى سديتين لح سورات قرآن كسمرك وحياة جونية أيو تركيسية حاجة عقيدة يا حاجة بعثة يا حاجة ما ركتي وحياة بدنا أرماك تعلق نارت يجنده يحسابته يو قرآن كمدني قال لي هذا بعد الهجرة سود جينا وإلى لبعتن يو سديت سورات مركا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم علماء وحي قيبيين وح صدن جزء أيو قيب سنة هاي مركا ما أنت حلقة إنه وجزء كسدحات جزء كسدحات وح كتشرته أعظم آية في القرآن الكريم ومركا بلو بيسأيه كتشرته وآية الكرس قفك مسلم كانوا كتدبروا أي لو بهاي هاي وح كتشر أسماء بدن وأسماء مقعيدة إلهي سبحانه وتعالى waxaa kaloo ku jirta juska saddexaad oo aayad kursi kadib la sheegay saddex qiso oo loo baahan yahay qofka muslimka in uu si fiican ugu tadabburo dhuuxo iyo macaanida ku jirta saddexaad qiso waxa weeye qisada nabiyullaahi ibraahim iyo ninkii la oran jiray namruud. qisada labaadna waxa weeye alladii marra calaa qaryatin kii soo maray tuulada soo maray. qisada saddexaadna waxa weeye qisada nabiyullaahi ibraahim iyo shimbirihii maaragtay afarta ahaa oo la yiri maaragtay shimbirahaas waxaa ku jirta juska saddexaad si gooniina lakugu boorinaya sadaqada iyo qofka muslimka markuu dadka la tacaamulayo qardu xasan inuu siiyo inuusan manni iyo ada iyo maaragta waxyaala noocaasa waxaa aada lagu caddeeyey in qofku baqdin uu ka boqo shaytaan faqri uu ka boqo inay shaydaan ay tahay in risqigan ilaahay qof walba risqigiisa ilaahay uu qoray. waxaana loo kaga digay juska saddexaad dhexdiisa ribada iyo qofkii ribada isticmaalay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dagaal la geliyo dagaalkaas ilaahay uu la geliyo anwaac badan leh aan cid ilaahayna ka hortegi karta aysan jirin. juska saddexaad waxaa kaloo lagu sheegay islaamku sida uu isugu taxallujiyay arrimaha dhaqaalaha maaragtay juskaas suuratulbaqara aakhirkeeda waxaa ku jira ilaa 5 dhawaaq ama nidaa waxa la yiraahdo oo dadka muuminiinta loo dhawaaqayo. saddex kamid ah dhawaaqyadaas muuminiinta yaa ayuha alladina aamanu loogu dhawaaqayo waxa ay ka hadlayaan u yeerid loogu yeeriyo ilaahay dartiisa wax loo bixiyo dacwa lil infaq iyo u yeerid loogu yeeriyo ilaahay cabsidiisa ad-dacwa lit taqwa iyo tan u dambayso yeerid loogu yeeriyo markay deyn kala qaataan in ay qoraan aysan wixii iska noqon wax maaragtay iska socdo oo soo noqon ay deynka ay kala qortaan آية الدين اللي راح أقول قرآن كريم جزء صدحات واحد لو شيء تصاليال أمثلة على الإنفاق في سبيل الله والإنفاق رياء قفك أبحية إلهي درت سوح ربها إيه قفك استسس وحبحية آيات تصالي أي بإلهي الأصوب قاتي من تصالي في على جبحية من تصالي في عنين بلا جبحية جزء صدحات واحد لو شيء تصاليال على قدرة الله على إحياء الموتى لإثبات البعث بعد الموت. إلهي سبحانه وتعالى أود
aan xadka lahayn uu leeyahay inuu awoodo dadku markay dhintaan kadib inuu soo nooleeyo taas oo daliil u ah in dadku ay soo noolaan doonaan la isxisaabin doono juska saddexaad waxaa lagu sheegay tusaale aad runtii tusaale laga naxayo fool xun ah qofka ribada isticmaala oo ribada ku dhaqma ayaa waxaa lagu shabahay si ay u noqoto wax fool xun dadku ka cararaan sidii midka jinka uu derderay maaragtay masahu shaytaan takhabad iyo si qof shaydaan derderay oo dhacdhacaya oo kale ayuu aakhiro usoo baxaya marka dadku ay soo baxayaan qubuurtooda kasoo baxayaan marka waa la garanayaa kaa inuu ribo cuni jiray adduunka suuratulbaqara aakhirkeeda waxaa lagu khatimay daacada ilaahay subxaana wa tacaala inay muhiim tahay iyo dadka mu'miniinta si ilaahay u ateecaan iyo rasuulkiisa iyo ducada ay ku khatimtay suuraddu oo dadka mu'miniinta ilaahay ay baryayaan nebiguna xadiis saxiix ku yidhi ilaahay wuxuu yidhi qad waa la ajiibay ducadiina marka suurad halkaas maaragtay waa qaybta jus ku saabsan baqara kadib waxaa qayb yar juska ka gelaysa suuratu ali cimraan suuratu ali cimraan waxa ay ku wareegaysaa laba rukni oo waaweyn ama laba tiir rukniga koowaad waa caqiidada iyo adilo waaweyn oo cadcad oo ay keentay waxdaaniyada ilahay inuu keligiis yahay uuna mudan yahay keligiis in la caabudo rukniga labaadna waa arrimaha tashriica la yidhaahdo iyo axkaamta khaasatan waxyaalaha ku tacalluqa jihaadka iyo maaragtay iyo axkaamtiisa suuraddu waxa ay ku bilaabatay in ay caddaynayso qur'aanku inuu yahay alfurqaan bayna alxaqi waalbaatil ilaahayna inuusan aqbalayn diin kale oo aan ahayn diinta islaamka ahayn inuusan aqbalayn diimihii nebiyadii ilaahay oo dhan ay diinta islaamka ahaayeen waxaa lagu sheegay suuradda bilowgeeda qisatu ummu maryam oo ciise hooyadiisa ahayd hooyadeed qisadeedii baa lagu sheegay maaragtay taas oo daliil u ah niyada wanaagsan say islaanta u niyo wanaagsanayd ilaahay ay ka bariday marka uur yeelatay oo ilaahay uur baan yeeshay ilaahay u nadartay ilmaha ay dhasho inuu noqdo mid u khidmeeyo ilaahay dartiis u khidmeeyo uu noqdo markii dambana ilaahay oo ilmihii gabar buu noqdo bay tiri halkaa waxaa laga qaadanayaa niyada wanaagsan waxaa laga yahay in badanoo inaga naga mida carruur markay ay noo uurgalaan inaanu ku fakerinba maaragta ilahayna aanu ka barin ilahay inuu durriyadaas u ka dhigo durriya tayiba saalixa ilahay inuu ka dhigo qisatu ummu maryam waa runtii waxaa kaloo ku jirta tusaale lagu daydo oo ah himada sarraysa iyo in dalab qofku uu dalbado durriyad uu dalbado si uu u ahaado qof u khidmeeya diinta islaamka daaci noqda maaragtay juska waxaa ku jira caddayn la caddaynayo in diintii nabiyullaahi muusa iyo ciisa iyo moxamed calayhim assalaam inay diintooda tawxiid ay ahayd allahna subxaana wa tacaala inuusan aqbalin wax shirkiya qofka ilahay u shariigay qayrkiisa ugu shariig yeelana in camalkiisa uu noqonayo camal aan waxba ka jirin waxaa juska saddexaad lagu sheegay ama ku jira dars mujtamacaadka sida loo naqdiyo qofku inuusan si guud uusan markuu wax naqdinayo ama wax ictiraadayo inuusan u naqdine uu qof walba xaqiisa u siiyo oo waxaa ku jira duruus tarbiye ah ilaahay marka uu leeyahay ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤده إليك لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يا آية كله وإلهي كل يهي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة مركا أهل الكتاب كسكمين معها كو إلهي أقوم يكو خلدن باكرة kuwa waxa kamid hadii lagu aamino maaragtay hal diinaar aan ku oofin kuwa hadii maal badan loo dhig marka inaan khalqiga ilaahay la isku qaadin halkaana darsi tarbiya ayaa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu suurad ku sheegay arrabbaaniya waxa la yidhaahdo meeshaan keliyaana qur-aanka lagu sheegay waana arrabbaaniyuunta waxa weeye uu qur-aanku sheegayo waa alculamaa aladiina yurabbuuna annaas waxay ku tarbiyeeyaan cilmiga ayay ku tarbiyeeyaan waxay ku sabraan shareecada islaamka ayay ku sabraan halkaana darsi ayaa ku jira ilahay ma kana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaba walxukma walnubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آياتها marka waxay cadeeyeen darajaadka rusulka iyo sharaftooda iyo manaasibtooda laga soo bilaabo aadam kadib maaragtay nuux kadib ibrahim kadib ali cimraan markaa kadib waxaa lagu xijiyey qisaskii maaragtay qisatu wilaadati maryam iyo qisadii wilaadati yaxya nabilah yaxya iyo qisadii dhalashadii ciisa saddexda juskaas waa lagu sheegay maryam dhalashadeedii yaxya dhalashadiisii iyo ciise dhalashadiisii
iyo mucjizaadkii waaweynaa inuu ilaahay ciisa ilaahay siiyey kuwaas oo dhammaantood ay daliil u ahaayeen qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay laga bilaabo aayadaha ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa ala ibraahiima wa ala cimraana cala alcaalamiin ilaa laga gaaro fain tawallow faina allaha caliimun bilmufsidiin marka juskan macanihiisa intaa ayaan kusoo koobi karnaa waa qayb suurat lbaqara aakhirkeeda iyo qaybta hore ee suurata ali cimraan inahaas ayay maaragtay ay tarkiisiyeen ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo kuwii ku dhaqma kitaabka ilaahay akhriya kuna dhaqma ilahay inuu naga dhigo si aan u noqono kuwa aakhiro la yidhaahdo akhriya oo kora meesha u dambaysa mansilada u dambaysa weeye maarag aayadda u dambaysa akhridan weeye mansilada gurigiinu ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo barakeeyo waqtigeena una naga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu